مسؤولين maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay xarunta ciidanka dabdamiska ee magaalada Ceergaabo taasoo hirgelinaysa xukuumadda Somaliland waxaana xarunta dhismahan cusub oo ciidanka iyo gaadiidkoodu ay baahi weyn u qabeen ayaa waxa munaasabadii dhagax dhigaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka waxaana halkaasi hadallo soo dhaweyn iyo mahadcelin ku aadan xukuumadda Somaliland halkaasi ka soo kala jeediyay xogayaha fulinta degmada dowladda hoose Siciid Cumar Caabi iyo taliyaha ciidanka dabdamiska ee gobolka Sanaag Cabdiqaadir Xasan Digaale iyo taliyaha ku-xigeenka ciidanka asluubta ee gobolka Sanaag Gaashaan Nasre Maxamuud Olol Jaamac waxaanu halkan loo isugu yimi in laga dhagax dhigo markii ugu horeysay xaruntii dabdamiska ee gobolka Sanaag iyo degmada Ceergaabo gaar ahaan oo qorshaheedu in badan hadda uu soo socday waa xaruntii dabdamiska ee heer degmadiina waatan heer gobolla waxaan u malaynayaa dabdamiska inta maanta Ceergaabo joogta ayaa laga unkay oo bilowgeedii ah waana fidi doonaa degmooyinka kale ee dalkana insha Allah waanu gaarsiin doonaa uu gaari doonaa halkan aanu hadda taaganahay waa meeshii dawladda hoose ay u astaysay ee ugu deeqday in laga dhiso guriga ama xarunta dabdamiska dabdamisku maraaxil fara badan buu soo maray waynu ogeyn gaadiidka dabdamisku maanta ku shaqeynayo gobolada kale waa lagu taakulan jiro waa la siin jiray laakiin degmada Ceergaabo isku tashi iyadu ay sameysay ayay ku iibsatay baabuurteeda dabdamiska booyadaheedii iyo baabuurtii dabka daminaya labadaba waxa naga soo gaaray runtii ciidanka dabdamiska iyo taliyihiisaba gaari booyada oo dabdamiska loogu talagalay in lagu xoojiyo inta kalena waanu ka sugi doonaa waxaan isku imaanay inaan dhagax dhigno xarunta ciidanka dabdamiska qaranka ee gobolka Sanaag ee heer qaran xaruntaas oo ay dhulka aynu aragno ay bixiyeen golaha deegaanka degmada Ceergaabo ugu horeeyo maayirka Ismaaciil Xaaji Nuur iyo xildhibaanadu dhulkaas oo xaruntaas u noqonaysa xarunta ciidanka dabdamiska qaranka miisaaniyadda qaranka la ka dhisay 2022 iyo 2023 xaruntaas oo ka koobnaan doonta laba dabaq oo isdul saaran xaruntii gaadiidka masaajidkii halkii cuntada iyo halkii tababarka dhulkaas oo cabrigiisu ku fadhiyo 57 xagana iyo 50 xagana intaaba waxa mahadnaqda iyo abaalmarin kale gudoomiyaha gobolka waxaan u mahadnaqaynaa golaha deegaanka sidaad ogtihiinba ciidanka dabdamiska waxa hoos yimaadaan dawladda hoose ama golaha deegaanka marka qaybtooda ka leeyihiin iyo dhaqaalahoodaba intoodu badan iyaga bixiya golaha deegaanku marka mahadnaq badan baan u soo jeedin doonaa aad baan u soo dhaweynaynaa goobtan loo dhisayo ciidanka dabdamiska ay ugu deeqeen dawladda hoose ee Ceergaabo dhulka lagana dhisayo miisaaniyadda qaranka aad baan u soo dhaweynaynaa haddaanu maamulka nahay iyo haddaanu nahay degmada Ceergaababa waxaan ugu dambeyntii dhankooda halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse wuxuu waqtiga iska leeyihiin maanta noqotay inuu dhagax dhigno insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa markay dhamaystirantana inuu dhamaystirka ilaahayna joojo ayaan rajaynaynaa insha Allah halkan waa dhulkii dawladda hoose hantida wahaa ay ku soo fidaysay aan ugu talagalnay xafiisyada iyo xarumaha dawladda hoose dhismahan ku yaalana arkaysaana dawladda hoose ayaa dhistay haddii aanu si walba uga fekeray waxaanu isla garanay ciidanka dabdamiska qaranku inuu yahay muhiim ciidan muhiima oo aad iyo aad loogu baahan yahay oo ugu baahan tahay magaalo madaxdu iyo dhammaan gobolka oo dhami waxay noqotay goobtan inaan iyaga u quudhno oo siino ayay nala noqotay sidaasaanu isla garanay waxaan rajaynaynaa dhismuhuna inoo dhaqsado gaara ciidanka dabdamiska ee gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hawl adag oo ay ku amaanan yihiin bay hayaan hawl adag oo aanay facility-ga ay u baahnaayeen u dhamaystirnayn ee ay u dadaalaan bay hayaan walow iminka ay ama dawladda hoose ha keento ama ciidanka qaranka ee dabdamisku ha keene ay iminka maxaan ku radaa baahidooda ay soo maxaan ku radaa fiican tahay oo dhammaystiran tahay
walow dee ay gobol ahaan aanay facilitigay ku wada gaadhi lahaayeen aanay hayn oo xarumaha dabdamiska sida taliyaha ciidanka qaranka aanu ka kulannay dhowaana insha allahu aynu dhaadicin doono xaruntii iyadana maydh ilaahay hadduu idmo oo maydhoo dekadiina u hirgashay wadadii la geliyey infrastructure qaaliya la geliyey ay khasab tahay ama muhiim tahay in loo helo xarun dabdamis markaan usoo daadego degmada Ceerigaabo oo magaalo weyn ah caasimadii gobolka ah inamada ka shaqeeya dabdamiska ah oo dadaal badan sameeyo awgood yeelkadeeda tirada haddana dabdamisku way yar tahay mar walba waanu ka codsanaynaa maxaan ku raahdaa madaxda heer qaran iyo heer gobolba inay arinta dhegta ku hayaan sidoo kale waxaan ka mahadnaqaynaa oo aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dadaalka gaarka ah ee uu geliyay taliyaha ciidanka dabdamisku xaruntan inay noo dhisanto taasoo laga maalgelin doono miisaaniyadda qaranka haddii ilaahay idmo insha allah bismillaahi kariim waxaa mahadle iyaduna golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo oo dhulkan qaaliga ah ee aragtaan maadaama dabdamiskii yihiin waxaa muhiim noqotay inaan koono loo saari karin ee magaalada dhexdeeda halkii ay gurmadka ka samayn lahaayeen la dejiyo taasoo bugcadan aad arkaysaan oo aad qaali u ah cali aadan daahir wararka telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceerigaabo